dhibaatadu waxay soo martay dalka Soomaaliya 1991 dalku wuxuu soo maray dagaal aan xad iyo xuduudnimo lahayn waxayna aragtidooda ku ahaayeen dhimasho iyo dhaawac iyo baahi iyo cudurro dadkuna way markaas qabyaalada ayaa u weyneed wadani doon dareen daacad waxay idin soo gudbinayaan barnaamij ku saabsan wadaniyada ayna ka dhimatay ummadda dareenkii iyo dadnimadii dareen daacada ummadda isku haystaan waxaa ka mid ah qabyaalada waxa lagu qabsado waa qabiil waxa jagal lagu helana waa qabiil waxa la isku dilana waa qabiil waxa ummadda ku kala carran waa qabiil waxa dalkana uu ku halaagsamana waa qabiil qabiilku muxuu yahay waxa laga tagay wadaniyadii dareen daacadii oo ummadda lahaayeen taasna waxay gashay baal xun ee ummadii gashay magacoodii sharaftoodii karaamadoodu way dhuntay ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay soo celiyo karaamadii sharaftii iyo ciziga aan lahayn dhibaatada dalka uu ku jiro dhibaatada dalka ka batayo dhibaatada dalka maslaxa weyn waa qabyaalado dadkaygu dareema dadkaygu dareema